madaxda ugu sarreysa safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika oo socdaal maalmahanba ku marayay gobolada dalka Koonfur Afrika si ay jaaliyadda Soomaaliyeed ula qaataan xog wareysi ku aadan xaaladda dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay ayaa kulan ku yeeshay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. Sheekh Daahir Maxamed Cali Baasto madaxa odayaasha oo ugu horeyn hadalka furay ayaa sharaxay waxyaabihii u qabsoomay jaaliyadda ku nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. madaxda sharafta iyo bulshadeena qiimaha badan ee Cape Town raba inaan u sheego maxaan ku guuleysanay hadda reer Western Cape-na. waxaan rabaa inaan idiin sheego waxyaabaha aan ku guuleysanay oo Ilaahay mahadiisa uu leeyahay marka koowaad. Goola odayaal oo ka wakiil hadana bulshada kaas oo ka sharciyeysan maanta dalka South Africa oo hay'ad sharci ka ah. Lambar 2 waxaan ku guuleysanay inaan dhisno forum aan ugu macdarnay danta guud oo ina ku midaysan yihiin inta badan ururada ka jira dalkan isaga. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ahna siihayaha xilka safiirnimo Maxamed Cali Mire Nabadoon, xogayaha koobaad ee safaaradda Ismaaciil Soomane iyo xogayaha labaad Axmed Maxamed Qeyre ayaa ka warbixiyay xaaladihii ay soo martay safaaradda Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada Pretoria ee dalkani Koonfur Afrika. Inta uu kulanka socday ayaa mas'uuliyiinta ka socotay safaaradda Soomaaliya waxaa halkaasi lagu weydiiyay su'aalo ku aadanaa arrimaha safaaradda. safaaradda saddexdeeda mas'uul baa u koreysa muddo anaga safiirkii markuu joogo ka tagnay walaalayaal waxba calooshayan lagu haysan wax alla waxaad maqli jirtay run iyo been haday yihiin soo gud laakiin dariiqa wanaagsan luqadda wanaagsan sida ugu sahlan qof wax lagu fahansiin karo ku soo gudbi inaan idin ka qancinaan ku dadaalayna. Mudane Maxamed Cali Mire Nabadoon ayaa sheegay in dhawaan dalka uu soo gaari doono safiirka dawladda Soomaaliya u magacaabatay dalkani Koonfur Afrika Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal magaalada